qaar ka mid ah dhalinyarada qaxootiga iyo barakacyaasha Somaliland oo tiradoodu dhan 52 qof ayaa lagu tababaray aqoonta xirfadda gacanta waxaana waxbarashadan ku jireen muddo gaadhaysa 8 bilood tababarkan ayaa ujeedkiisu ah sidii shaqo abuur loogu sameyn lahaa dhalinyaradan waxaana barnaamijkan iska kaashaday hay'adda NRCR iyo hay'adda UNHCR waxaana qayb ka ahaa wasaaradda dib u dejinta iyo wasaaradda waxbarashada Somaliland ugu horeyntiina waxa madashaasi ka hadlay Cabdiqaadir Cumar Xasan oo ka socday hay'adda NRC iyo waliba Xamse Muuse oo isaguna ka socday hay'adda NRC waxaana ka hadleen xirfadan iyo waxa la siinayo dhalinyarada xirfadan ay bartay waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynaya waqtigii wanaagsanaayeed ku lumiseen xirfadaad barateen aad maantana aad u joogtaan inaad markaa qalin jabisaan muddo 8 bilood aad soo wadeen laba nooc oo xirfado kala duwan baad barateen oo ah midna tailoring oo wax tolistiya iyo kii kale ee lightka ama electricity-ga ayaad soo barateen runtii waxaan rajaynaynaa inay noloshiina iyo maxaan ku dhahay bulshada la nooshiinba ay wax ka tari doonto oo ummadana ku dhex gali doontaan sidoo kale waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dawladda Somaliland oo dadka qaxootiyaasha ama maxaan ku dhahay ajaanibta kale si fiican u soo dhaweysay ka qayb gelisay inay wax bartaan ama dugsiyada ha noqoto ama xirfadaha ha noqoto ama jaamacadaha ha noqotee runtii dawladda Somaliland way soo dhaweysay waan u mahad celinayaa marka dawladda Somaliland aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa hay'adda UNHCR oo ah cidda runtii mandate qaxootiga u leh idin caawinaysayna sidoo kale waxaan aad ugu mahad celinayaa dhalinyartii ka socotay NRC sida wanaagsan idin la soo maxaan ku dhahay dadaashay barnaamijkan ardayda markay qalin jabisay waxa la guddoonsiin doonaa shahaadooyin waxa kaloo jira ardayda in la siin doono qalabkii ay ku shaqaysan lahaayeen haddii ay dawaar tahay qalabka insha Allah taala waxa lagu qaybin doonaa SPC-da oo aad bay u ballaarneyd intaasoo dawaar halka la keeno iyo qalabkii electricity-ga ee ardayda ka baxday lightka labadaba waxa la idinku qaybin doonaa centerkii aad wax ku baranayseen maalinta axadda insha Allah taala arday walba soo diyaar garoobo dhinaca kalena waxa madashaasi ka hadlay Khadra oo ka socotay hay'adda UNHCR iyo gudiyada kala duwan ee Miina iyo Heeka waxaana ka hadleen faa'iidada ay leedahay xirfadan iyo sida ay ugu shaqaysan karaan dhalinyaradani maanta waxaan halkan u fadhinaa 250 arday oo ka qalin jabinaya tailoringka iyo electricalka tafidka ama programkan waxbarashada dambe ama skillsku wuxuu qaybsamaa laba nooc dhowr bilood socota iyo nooc 6 bilood socota dhowr bilood socota iyo nooc 4 sano socota oo maxay ahayd sida maxay ahayd waxbarashada sare oo kala sidaas darteed UNHCR waxyaabaha aad iyo aad u tixgelisay weeyaan waayo qofku hadduu skills yeesho meeshuu doono caalamka ka qayb gali karaa UNHCR horta waxa weeyaan aad bay ku mahad celinaysaa NRC aad bay u mahad celinaysaa ardayda qalin jabisayna waxaan leenahay congratulations iyo hay'adda UNHCR-ta oo maanta uga faa'iideysay ardaydeeda xirfadaha kala duwan ee maanta soo bartay oo iyagana rajaynaya inay ka faa'iideystaan oo ay si fiican ugu shaqeystaan. We are very happy of this collaboration of this dealing and participation. So we thank all participants and first and all we thank Allah. ugu dambeyntiina waxa madasha ka hadlay wasiirka dib u dejinta Somaliland Saleebaan Ducaale waxaanu kula dardaarmay dhalinyaradani bartay xirfadda in ay markaasi ka mid dhaliyaan waxay barteen iyagoo halkaasina lagu guddoonsiiyay dhalinyaradani xirfadda ay barteen shahaadooyinkoogii marka waa inaad ka faa'iideystaan wixii aad barateen hadday leer tahay iyo hadday dawaar tahay ee sideed bilood baranayseen waa inaad ku samaysaan degenaansho aad ku degtaan oo noloshiina ay wax ka bedeshaan oo hadday tahayna hablaha dawaarka bartay dawayna dawaar fiican oo farsamo leh iyo ilaa aakhirka daa samaysaan marka mid qofka dawaar leeyahay xataa wuxuu hindisi karaa inuu warshad dhar samaysto Somaliland waa inaad ka samaysataan warshado dharka oo dawaarkiina horumarisaan dawaarkiina horumarisaan
inamada leerkana waxaan leeyahay daweynaha leerkiina idinkuna electriga aad barateen daweynaha hudheelada waaweyn oo dhisayo iyo tijaarada dhismaha ka socota daweynaha leerka gelisaan oo horumar fiican iyo shaqo fiican iyo mushahaar fiican ka qaadataan oo xirfadiina aad soo bandhigtaan hay'adana aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa in bartay weriyo subeer galeyd CBA maasha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeegga internetka ay fiber optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagarla ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121